waxay noqotay mid xiise gaara u yeeshay dadkii ka soo qayb galay aroos wadareedkan waxaanan u kuurgalay sidii aan wax uga ogaan lahayn aroos wadareedkan waxaanan u qalab qaadanay guriga ay ka degan yihiin qoysaskan magaalada Burco oo 4 kiiloomitir galbeed ka xiga magaalada Burco waxaanan booqanay guriga ay ka degan yihiin labadani qoys oo kala ah Barkhad Mustafa Ibrahim iyo marwadiisa Barwaaqo Maxamuud Axmed iyo sidoo kale qoyska labaad Axmed Ismaaciil Warsame iyo Bushra Xuseen Axmed oo labadaasi qoys dhigtay aroos wadareed ka dhacay magaalada Burco labada nin horta isku gurigaan ahayn laba nin oo saaxiib ahayn kadib waxaan go'aansanay inaan guursano anagoo halka wada hurudna kadib markii dambana waxaan ogaaminay waxaas nilimaada horreyn misaana horreyn deeta markaan isniinteeda waan isnilay ma midkina horreyn maaye arooskeenii ma adii hal aroos u noqdo oo hal mar wada dhaco balka war waaye biisa wuu saasa oo qurux badan saasan ka dhiganaaba sidii baan go'aaminay sidii arooskana ku dhacay marka labada marweed kala guursateen iyaguna ma saaxiib dhankooda ahaayeen mise idinku ba saaxiib ma saaxiib ahaayeen laftarkooda marka hore aniga la sheekaysanay oo marweeda kadib sagana saaxiibaan ahayn intaan saaxiibadeed baad kadib marka isagii iyadana way isku yimaadeen halkii barashada ka bilaabantay marka sida awgeed ba markii damaanada Ilaahay wax ka wadiyo oo ka reer noqonay maanta marka qaabkee ay u hirgashay in hal mar arooskan hal hotel ku wada qabataan sidoo kale hal guri oo weyn aad wada degtaan waxay ku hirgashay marka hore doonista isku mar way dhacday markii damaana waxaan niri muxuu ahaa mar haddaynaan meel waxba kala haynba marka horena isku gurin garanay imina hal guri noo sharaxan yahay arooskiina israacino hal aroos soo haado ducadina hal meel ka wadaas waana hal aroos waan laba kala aroos labada hawloodna waxay ka soo kala jeedaan Sanaag iyo Burco aniguna waxaan ka soo jeedaa Gabiley saaxiibkay waxaan ka soo jeedaa muxuu ahaa Sool runaantii markaa maanta wuxuu kala yaabaan Somaliland dhamaanteed dhalinyarta Somaliland waxaan leeyahay sidaas oo kala sameeya runtii kharash haday noqotay oo haday wax ka noqotaba sana fudud oo aroosku hal meel gurigu hal meel asmadu hal meel wax walba waa hal meel meherka ma kala duwanay bal ma leeyahay san filayade ya marka alxamdulillah ana waxaan ahay Barwaaqo Maxamuud Axmed saygaygu waa Barkhad Mustafa Ibrahim waxaan sheekaysanay muddo ilaa 2 bilooda waxaan isbaranay barashadeedii koowaad bishii 6 25keedii maalin isniina san filayaan Bushri waxay ahayd saaxiibteedii kaliya meel ku wada karnay ilaa muddo 15 sano marnaba isma lahayn gurigooda wada degaysaan balse rajadeyda anigu say qabtay beedeed dareenkana waxaan isleeyahay runtii waa wax cusub aad ku soo kordhiseen caalamka ma sheegay laakiin wadankeena Somaliland Axmed waxa weeye saygayga saaxiibkii kooda waxa sabab u ahaa labadayada waliba gaar ahaan aniga mid ka mid ah helada qoyskan ayaa ka warbixiyay qaabkay u arkeen markay ay la yimaadeen fikradan iyo sidoo kale waxay ka aaminsanayeen markii hore aad iyo aad baynu horta nagu qiso weynaatay laba nin oo laba hablood wada wata ayaa reerkii yimi markii la yiraahdo aad iyo aad baynu ugu qiimo weynaatay aad baynu cajib gelisay laakiin markii dambe aad baynu ugu fudaatay aadna ugu farxnay si aadan waa noo soo dhaweynay hadii aan lahay family-ga dawaayo iyagu imanka waa iskaga raali afartooda qof waxay iskaga saasi ku qanacsan yihiin iskaga raaliyiin